السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta halkan ku soo gudbin afar qodob oo hadii aad raacdid oo si fiican u raacdid aad gaari doontid guul aad soo isla markaana ay ku funaan doonto wado kasta oo aad rabtid ama guul kasta oo aad rabtid inaad xaqiijisid. afarka qodob oo aan halkan ku soo gudbinay hadii aad sida u fiican u raacdid waxaad gaari doontaa guul aad u sareyso isla markaana waxa ku furmi doono wado kasta oo aad rabtid. qodobka koowaad badi baryada Ilaahay. markasta hadii Ilaahay aad ka baridid inuu kuu fududeeyo waxa aad rabtid ama waxa aad higsanaysid waxa kuu fududaanaya wax kasta oo aad rabtid ama wax kasta oo aad higsanaysid. qodobka labaad yeelo hami go'aan leh. hadii aad yeelatid hami aad waxaas aad ku soconaysid oo aad waxaad rabtid inaad waxaas gaartid. qof kasta maanta waxa uu leeyahay hami go'aan, laakiin hadii aad leedahay hami oo hamigaasna aadan ka leexatid oo hadana mid kale aad aadid waxa laga yaabaa in maskaxdaadu ay isku weerarto ka bacdina aan waxba ku hagaagin. laakiin hadii aad hami yeelatid oo hamiga ku socotid waxa ku hagaagaya ama aad gaari doontaa guul aad u sareyso. qodobka saddexaad markasta niyadaada ku celceli waxa aad rabtid oo mid ugu fiican oo hadii aad waxa aad rabtid aad niyadaada ku celcelisid waxay ka saacidin in niyadu ay gasho waxa aad rabtid ka bacdina aad waxaas maalin kasta soo xasuusid oo aad tiraahdo wixii aad hadda tusaale waxaad niyad gashatid in aad kacdid subax kasta salaad subax ama aad kacdid markii ay tahay salaad subax. marka niyada gashatid waxa laga yaabaa in nafsadu ku shugto adoo hurdo qadi aad soo kacdid ka bacdina aad salaad subax soo kacdid. laakiin hadii aad niyada aan gashan wixii aad sameynaysid ama u baahan tahay aad niyada gashan waxa laga yaabaa inaad wixii aan sameyn. qodobka ugu dambeeyo ee afraad wixii aad u baahan tahay adiga marka hore naftaada ka dhaadhici ka bacdina qof kale ama dad kale u sheeg waxaani sidee ku yihiin ama qof hadii aad wax la kaashitid mar way fiican tahay marna waxay ku fiicneen markaad adigu dhaashid qofkaas wax ii door. tusaale waxaad rabtid inaad gashid jaamacadaas waxay is leedahay qof wax ku dhaxsa wax ii doodhaa wixii aan baran lahaa ama koorsidii aan wixii aan baran lahaa ii door. kaas waa mid aad u khaldan inaad qof wixii aad baranaysid aad weydiisid. waxa fiican adigu inaad naftaada ka dhaadhicid maxaa rabaa inaad baratid ka bacdi wixii aad adigu naftaada ka rabtid ama wixii aad ku haminaysid aad soo xaqiijisid ka bacdi dadka weydii sida waxaan aan ila talin u fiican tahay taladu waxa laga yaabaa in talada dadku siiyaan dad badan hadii ay talo ku siiyaan aad taladaas ku guuleystid. maanta barnaamijkeeni inta ayaa kusoo gabagabeynayaa inta kulmano kulanti buuxisare. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ha ilaawina fiidiyogan like saadid subscribe na ku samaysid channelka si aad ula socotid muuqaalada dambe oo aan soo dhigno kanaalka. waad mahadsantahay.